analyse gareeyo fundamentalka maanta oo ay tahay 17 bisha September waxay u tahay maalin aad iyo aad weyn maxaa yeelay waxa soo socda afar war oo waaweyn kuwaasi oo suuqa red ka wada dhigay waxay ka dhigan tahay inay wararkan yihiin kuwa aad iyo aad u saameyn doona lacagaha dahabka dollarka iyo lacagta bitcoin iyo ethereum waana maalin dadku ay faa'iido doonaan lacag aad iyo aad u badan ama ay qasaari doonaan qasaara aan xadidnayn maxaa yeelay dadka fundamentalka ku analyse gareeya mar walba waxa ay la beegsadaan tradedooda marka ama daqiiqadaha ugu dambeeya ee suuqa ay galaan ama newska uu soo bixi rabo kan ugu horeeya sida weyn loo wada sugayo ee saameyn doona dollarka dahabka iyo bitcoinka waa warka dulsaarka maraykanka oo waayahanba si weyn loo sugayay waxaana dhici doonta haddii raydka la dhimo ama hoos loo dhigo waxaa dhulka geli doona lacagaha dollarku ay ka mid tahay ama euro USD-da sidoo kalena waxaa kor aadi doona bitcoin dahabka iyo lacagaha kale ee isku jahada yihiin warka labaad waa warka lagu ogaanayo in ay sarreyso ama ay hooseyso sicir bararka iyo shaqo la'aanta haddii saadaashu ay muujiso in sicir bararka iyo shaqo la'aantu ay sarreyso waxa ay taasi calaamad u tahay in kor loo qaadayo dulsaarka mustaqbalka dhow waxaana arrintaasi saameyn ku yeelanaysaa suuqa waxaan urgelayaa corruption warka saddexaad waa promise statement waana war qoraal ah oo kasoo baxaya fed haddii hal eray oo jilicsan uu warkaasi ku jiro suuqyadu waxa ay samayn doonaan dhaqaaq weyn oo lama filaana laakiin hal eray oo adag ayaa waxa uu samayn doonaa in suuqyada saamiyada iyo kriptadu ay daataan warka afraad waa Forex Price Conference waa shir jiraa'id oo qabanayo gudoomiyaha Fed su'aalo ayuu ka jawaabi doonaa su'aalahaasi uu ka jawaabayo ayaa waxa ay leeyihiin saameyn xooggan oo suuqa saameynaysa waxaana laga akhrisan karaa mustaqbalka heerka dulsaarka in hoos loo dhigayo iyo inuu aadayo meel sare kuwaasina suuqa waa ay saameyn doonaan dhammaantoodna wararka maanta soo baxaya waa warar aad iyo aad u leh saameyn xooggan oo ay muhiim tahay in ay dadku si weyn ula socdaan haddii ay yihiin dadka news ku talagelaya iyo kuwa aan ku talagelaynba haddaba insha allah waxaan ogaan doonaa newskaasi waxaa kasoo baxay isla suuqyada u saameeyaan soo follow gareeya tiktokena oo my exchange sidoo kale subscribe soo saar youtube-keena page-keena oo my exchange flow soo dhaha aad ayaa u mahadsantihiin